waxaana idin soo bandhigaya aniga oo ah Shamsa Cabdulaahi Baybuug. daawadayaal waxaan ku soo guda jirnay in aan ka sheekayno cudurrada iyo dhibaatooyinka gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka ducafada ah iyo caruurta ku dhici kara ee u nugul in ay cudurka si sahlan u qaadaan. cudurradaasi oo aan markaan ka soo sheekaynay infectionka aan ka soo sheekaynay infectionkana in uu u baahan yahay arrimo badan si uu markaas qofka u asiibo. infectionka waxaan haddaan in yar idiin dulmaro wixii aan soo marnay. infectionka waxa uu u baahan yahay qof uu galo oo uu cudur ku rido, waxa uu u baahan yahay jeermigii laf ahaantiisii ayaa loo baahan yahay, iyo waxaa loo baahan yahay jawiga uu ku nool yahay jeermiga. marka waxaa loo baahan yahay waa jeermigii, jirka iyo jawiga, saddexdaasi jey ayaa loo baahan yahay. marka waxaa kaloo jiro oo soo afareeya qayb la yiraahdo qaadaha amaba gaadiidka. gaadiidka waxa uu noqon karaa sida haddaan misaal ahaan u soo qaadano waxa uu noqon karaa tuqsiga oo kale. tuqsiga hadduu meel wasaq ah ku soo istaago oo uu jeermigii ka soo qaado oo uu soo kaco oo cunto dul istaago, cuntadiina ay jeermigii yeelato, kadibna uu qofkii laqo oo cuno, cuntadaasi waxay noqonaysaa qofkii xamaalay waxaa qaaday cudurka, waxaa soo qaaday oo jeermiga soo qaaday waa tuqsigii. marka tuqsigii hadduu soo qaaday isaga waxaa lagu magacaabaa qaadaha jeermiga. cudurrada sida loo kala qaado waa siyaabo badan. qaarba waxaa lagu kala qaadaa taabashada, qaar waxaa lagu kala qaadaa wada hadalka oo dadka iyaga oo wejiyadooda isku aadan yihiin haddii ay wada hadlaan, qofna cudur uu qabo amba qof adiga oo la hadlayo wejiyadiinna ay siman yihiin oo ay isu dhow yihiin, kadibna aad qofkii kugu hindhiso ama uu kugu qufaco isaga oo aan afka gacanta saaran, kadib waxaa dhacaysa in cudurkii jeermigii uu ka soo baxo sanbabkiisa haddii uu qabo cudurrada sanbabka, kadibna uu hawada adiga iyo qofkaasi idiin dhexaysa dhammaanteed ay markaasi noqoto jeermigii uu ku hindhisay amaba uu ku qufacay, kadibna adigii waad neefsanaysaa oo qofna neefta ma joojin karo. marka sheekadu halkaa marayso waxaa loo baahan yahay ummadda dhammaanteed in ay ku baraarugaan qofka marka uu xanuunsan yahay, marka uu hargab qabo, haddii uu qaaxo qabo, haddii uu cudurrada neef mareenka uu qabo, in uu qaato maro yar amaba fasaleti yar oo marka uu qufacayo amaba hindhisayo amaba uu hadlayo oo afka daboosho ayaa loo baahan yahay si uu uga badbaadiyo dadka intiisa kale. ma aha oo keliya waxaa laga yaabaa in uu aabbaha hargabsan yahay oo caruurtiisa markaa ay ladan yihiin, haddii caruurtii uu la hadlaayo amaba xaaskii uu saa ula hadlayo si toos ah, kadibna uu qaadsiiyo cudurkii uma roona, maxaa yeelay dhaqaalaha reerka oo dhan ayaa isdhimaya, maxaa yeelay waxaa loo baahnaanayaa in dhakhtar la aado. marka ummadda waxaa loo baahan yahay in ay ku baraarugaan qof kasta oo dareemayo in uu qabo xanuun oo soo raaci kara neefsiga xaggiisa, in uu qaato maro yar, candhufta aanu dabadda ku tufin ama dhulka ama wadada ku tufin, maxaa yeelay wadada candhufta marka aad ku tufto haddii candhuftaadu jeermis la socday dabeesha ayaa qaadi karta. qof daciif ah oo wadadii maraya ayaa dabeeshii siigadeedii afka uga dhici kartaa, kadibna uu laqi karaa. marka waxaa loo baahan yahay sida aad adiga jeclaan lahayd in aadan jeermis u qaadin, min fadlakum waxaan iga waana ah in qof walba uu ka fikiro qofka kale ee isaga la nool amaba deriska la ah amaba mujtamaca la ah amaba ay wadaagaan magaaladaasi amaba tuuladaasi. cudurradii aan ku soo jirnay infectionka markaan ka sheekeynay caawa waxaan u gelaynaa silsilad amaba dhowr cudur oo aan rabo in aan halkan ka sheego. cudurradaasi waxaan hadda ka horna waan soo sheegay magacyadooda haddaan idiin dulmaro waxaa weeyaan cudurrada dilaaga ah ee ugu badan caruurta iyo dadka ducafada ah sida hooyooyinka uurka leh, dadka waayeelka ah, bukaan socodka iyo caruurta dhashay amaba yaryarka ah. cudurradaasi waxaa ka mid ah jadeecada,
oo afka qalaad loogu yaqaano measles. waxaa ka mid ah xiiq dheerta oo loo yaqaano pertussis ama whooping cough. waxaa kaloo ka mid ah gowracatada oo loo yaqaano diphtheria. waxaa kaloo ka mid ah poliomyelitis-ka amaba naafada oo loo yaqaano iyadana poliomyelitis, iyo tetanadaasaytan iyadana tetanus ayaa loo yaqaanaa. marka haddaan ku horumarno cudurka measleska amaba jadeecada ayaan caawa ka hadli doonaa haddii aan la ogolaado. cudurkan jadeecada ah cid kasta ayuu ku dhici karaa. waxaa kaloo uu ku dhici karaa dadka shaqsin waa ugu dhici karaa, wadar ahaanna dadka waa ugu dhici karaa. waxaa laga yaabaa in cudurka jadeecada haddii uu magaalo soo galo, waxaa laga yaabaa in magaalada oo dhan uu asiibo oo markaasi cudurkii uu noqdo cudur haleelay amaba asiibay wadar ahaan dadka magaaladaas ku nool. waxaa dhici karta xaafadda uu ku dhacay in ay sababtay oo keliya hal qof in uu keenay cudurkaasi, kadibna uu u dhiibay qof kale, qofkii kalena uu caruurtiisii usii dhiibay ambaba caruurteedii usii dhiibtay. waxaa laga yaabaa suuqii uu tegey, intii uu la hadlay, intii uu ag fadhiyey, candhuftii uu waddada ku tufay, intaasoo dhan cudurkii waa laga qaadi karaa. sida cudurkani loo kala qaado waxa ay yihiin sida hadda aan soo sheegay, amaba haddii kale markii sida hoos ahaan haddii aan isugu dhigno, waxaa loo kala qaadi karaa qol haddii aad la seexato amaba dadka qolkaasi wada jiifa ay tiro badan yihiin. qolkan habeenkii marka la seexdo la xidho albaabada iyo dariishadaha loo xidho amaba daaqadaha loo xidho, kadibna ay dhacdo dadkii mid ka mid ah in uu qabo cudurka, kadibna uu dadkii markay hurdayeen way neefsanayaan, markaasna neeftii ay u qaybsanto dadka hurda qolkaasi oo dhan. waxaa laga yaabaa dadka in ay overcrowded yihiin oo qolka ku badan yihiin. qolka haddii ay ku badan yihiin waxaa laga yaabaa hal qol in ay wadaagayaan oo ay ku wada seexanayaan dad tiradooda gaaraysa ilaa 7 ilaa 8 qof. marka halkaasina waxaa ka dhacayso in dadkii ay ku badan yihiin qolka masaaxada ah ay dadkaasi ku nool yihiin amaba ay seexanayaan. waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa in cuntooyin la isla cuno, oo soomaalida badanaa waan wada wadaagnaa saxanka, intaasoo dhan ayaanu gacanta wada gelinaa. marka waxaa laga yaabaa dad baa dabeecado waxay leeyihiin bariiska markay gacanta saa ugu cunaan wixii afkooda ka soo baxay in ay haddana ku celiyaan saxankii ee dadka dhan uu la wadaagayay, kadibna ay noqoto in cudurkii halkaas qofkii uu uga gudbiyo intii saxanka kula cunaysay cuntada. cudurkani waxa uu leeyahay muddo u dhaxaysa waqtiga jeermigu uu jirka galay iyo waqtiga uu soo baxayo calaamadaha cudurka ay soo baxayaan. waxaa u dhaxaysa waxaa laga yaabaa maalin ilaa 14 maalmood in uu jeermiga jirkaaga ku jiro asaan wax calaamada ah aanay kaa soo daahirin amaba kaa soo bixin, sida xumadda iyo xanuunka iyo qufaca iyo jadeecada nabarada ay leedahay ee jirka ka soo yaaca. waxaa laga yaabaa muddadaasi inta u dhaxaysa ilaa 4 maalmood ilaa 14 maalmood inta u dhaxaysa qofba waxaa laga yaabaa isbuuc kadib qofkii in ay ku soo baxdo jadeecadii, waxaa laga yaabaa in 10 maalmood kadib ay ku soo baxdo. marka muddadaasi waxaa loo yaqaanaa muddada cudurka jeermiga jirka u galay iyo inta uu calaamadaha cudurka qofka ay ka soo yaacayaan. waxaa kaloo jirta jadeecada waxa ay dadka ay ugu dhacdaa si wadar ahaan amaba si shakhsi ah. dadka ay u nugul jadeecada waxaa ka mid ah ilmaha hadda dhashay ama ilmaha yaryarka ah ama naaska nuugayo amaba socod baranayo amaba hadda dhashay. waxaa kaloo jiro in ay u nugul yihiin dadka gaboobay
aadka u daciifka ah. waxaa kaloo u nugul dadka bukaan socodka ah. dad badan oo waxaa jira bukaan qaba oo bukaankooda la socdo magaalada shaqaysta laakiin way jiran yihiin ama markaas un isbitaal ha ka soo baxaano ama weli isbitaal haddaanay tegin laakiin ay xanuunsan yihiin waa daciif oo jirkoodii waxaa ku jiro jeermi already mar hore ka awood batay difaaca jirkiisa qofkaas. marka qofkaasi cudurkii waa uu qaadi karaa. waxaa kaloo qaadi kara cudurka hooyooyinka uurka leh maxaa yeelay waa daciif iyaguna. waxaa kaloo qaadi kara dadka aan tallaalnayn. tallaalka waa loo baahan yahay. tallaalka caruurta waxaa loo baahan yahay jadeecada, xiiq dheerta, waxaasoo dhan waa laga tallaala caruurta. qaaxada waxaa laga tallaalaa naafada, intaasoo dhan teetanada waa laga tallaalaa. marka waxaa loo baahan yahay hooyooyinka iyo aabbayaasha, abaayayaasha, aboowayaasha dhammaan in caruurta aqalka joogta ay hubiyaan in caruurtaasi ay tallaalan yihiin. waxaa kaloo loo baahan yahay dadka caruurta iskuullay tagaan. iskuullada caruurta ay tagaan waxaa laga yaabaa in shakhsiyaad ay leeyihiin. marka shakhsiyaadkaasi waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay marka ay caruurta diiwaan gelinayaan ay weydiiyaan waalidkood caruurtani ma tallaalan yihiin. maxaa yeelay kalaas ayaa waxaa soo wada fariisanaya 30 40 50 caruur ah ayaa hal kalaas la fariisiyaa. intaas markii la fariisiyo kalaas ee 2 amba 3 ka mid ihi ay qabaan cudurro neefta xaggeeda ah oo ay maanta dhan neefsanayaan oo hadlayaan oo qoslayaan oo ciyaarayaan, marka waxaa dhacayso in ay jeermigii caruurta kale u qaybiyaan. ka soo qaad ilmihii oo 50 caruur ahaa ee jeermigii maanta wada qaybsaday. caruurtii 50 caruura oo guryahoodii kala tegay, 50 guri ayay kala tegayaan. 50 qoys baa cudurkii haddana qaadayo. qoyskiiba ka soo qaad inuu yahay 7 qof ka kooban yahay, 2 qof ay soo siyaarato marti u tahay, jiiraanka amaba dariska soo booqdeen u soo galeen. marka cudurkii ilmihii maanta 2 caruur ahaa ee kalaaska ku dhex qufacay amaba qaybiyey jeermigii. waxaa jeermigii umayna qaybinin kalaaskooda inta fadhida oo keliya ee waxa ay u qaybiyeen in ka badan xaafad dhan ayay u qaybiyeen. marka jadeecada iyo xiiq dheerta iyo sida ba'an magaalada dhan ugu galaan ayaa sidaas ay tahay. oo waxaa laga yaabaa hal qof inuu dhowr qof la hadlay amaba gaari ay wada raaceen dhowr qof, dhowrkii qofna ay dhowr guri kala tageen, dhowrkii gurina ay guriba u ku nool yahay dad badan, kadibna sidaas magaalada oo dhan cudurkii markaa uu wada asiibo ay jadeecadii ku wada fido. maxaa yeelay sidaan ognahay jadeecadu marka ay magaalada soo gasho dadka way wada ogyihiin. waxaa la yiraahdaa waa jadeeca magaalada soo gashay oo waxaa la ogyahay in ay dadkoo dhan saa u wada marayso. marka ma aha in jadeecadu ay iska tegayso oo qof walba iska asiibayso, laakiin waxay u baahan tahay qofkii in ay u tagto oo jeermigii jadeecada keenayay uu qofkii galo oo u tago loo geeyo amaba neefta ha ka qaado, taabashaha ka qaado, dhar la isla xidhay, guri la isla seexday, sidii doonaba ha ku qaada qofkii waxa uu baahan yahay in jeermigii uu jirkiisii galay. jadeecada waxaa keena ilma qabatada loo yaqaano viruska iyo bakteeriyada way kala adag yihiin. viruska waxa uu caado u leeyahay in uu ku qafilan yahay shell amaba qafis, waxa ku qafilan yahay wax adag, jirmi adag ayuu ku qafilan yahay. marka waxaa laga yaabaa haddii xitaa biyaha la karkariyo oo karkarka biyaha meesha ugu sarreysa la geeyo oo ah 100 grade centigrade ah, haddii la karkariyo kuma dhimanayo. marka laakiin jirka marka uu galo waxa uu u baahan yahay in uu ku tarmo ayuu u baahan yahay. marka viruska waa wax aad iyo aad u ba'an. cudurradana waxa ay dadka magaalada oo dhan u asiibaan amaba xanuunkooda u daran yahay. sababtaasi waxa weeye ilma qabatadan viruska ayaa ah mid aad iyo aad ay u dhibaato badan tahay sida looga guulaysto amaba loo dilo mar hadduu qofka asiibo. waxaa dhimashadiisa waa uu ka adag yahay amaba ka dheer yahay
in la dilo bakteeriyada. dadka waaweyn waa uu ku dhici karaa. dadka waaweyn oo uu ku dhici karo waxaa ka mid ah gabowga dadka ah. dadka gaboobay sababta uuna ugu dhacana waxaa ka mid ah in ay iyagu difaacoodu uu aad u yar yahay. jadeecada marka aan leenahay waa cudur, waxa weeyaan cudur hadduu ilmaha amaba qofka weyn ku dhaco, hooyada uurka leh ka soo qaad, haddii uu ku dhaco ilmaha uurka ku jirna jadeecadaasi way taabanaysaa oo waa uu ku dhacaya. marka waxaa laga yaabaa ilmihii hooyadii inay uurkii soo rido, ilmihii uu ku dhinto, fool aanay waqtigeedii gaarin foolato, dhibaatooyin badan markaas halkaasi ay kala kulanto. waxaa samayn karaa jeermiga cudurkaani, waxa uu asiibaa unugyada sanbabka iyo dheefshiidka, maskaxdana waa uu u gudbi karaa. marka intaasuba calaamadahooda ayaa lagu arki karaa ilmaha amaba qofka weyn ee uu cudurkan ku dhacay. cudurkan marka uu qofka ku dhaco amaba caruurta uu ku dhaco ee ay ka bogsadaan, waxa uu leeyahay waxa la yiraahdo permanent immunity, amaba waxa uu leeyahay waxa laga noqdaa guri oo markaa jirka uu ku dhacay jadeecada ay ku dhacday, waxa uu samaystaa difaac aanu dib dambe jeermiga jadeecada aanu waxba yeeli karin jirkaas. marka Soomaalida waxaa loo yaqaanaa jadeecada waa ka guri qofkaas oo waa ay ku dhacday weeyaan macnaheeda. marka mar dambe kuma dhacaysa. haddii ay dhacdo in ay ku dhici kartana waxa weeyaan mar jirkiisii uu daciifay oo difaaciisii u baaba'ay oo uu qofka difaacna lahayn haba yaraatee, markaas ayuu qofka ku dhici karaa. sida cudurrada HIV-ga markaan ka hadlayno, HIV-ga waa cudur asiiba difaaca jirka ayuu baabi'iyaa. si kale dadka uma dilo. AIDS-ka isaga naf ahaantiisa dadka ma dilayo, laakiin waxa uu baabi'iyaa difaaca qofka jirkiisa uu leeyahay. marka uu difaacaasi baabi'iyo waxaa dhacaysa in hadhowtii qofkii hargab oo keliya oo caadi iska ah uu qofkii u dhiman karo. cudur kasta ayuu u dhiman karaa, maxaa yeelay jirkiisa ma laha difaac. marka cudur kasta ayuu qofkaasi u nugul yahay. waxaa marka jadeecada ay ummad dhan wada asiibto, waxaa lagaga hortagi waxaa jadeecada marka ay magaaladoo dhan gasho, sida ugu xawli leh ay dadka ku baabi'in karto waxa weeyaan 40% ayay dili kartaa marka ay magaalo soo gasho. caruur ha ahaadaan, dadka waayeelka ha ahaadaan, inta ay asiibto oo magaaladaasi ay haleesho oo ay ku dhacdo jadeecada 40% waa ay u dhiman karaan. inta u dhimanaysana waa inta aan soo sheegnay ee ducafada ah. sida viruska jadeecada keena uu u shaqeeyo waxa weeyaan in uu galo unugyadaasi uu galayo waa unugyada sanbabka oo markaasi qofka uu qaado, sida cudurrada neefta, naqaska oo dhiba sanbabkiisii oo aan shaqayn karin. maxaa yeelay sanbabka waxa uu noo qabtaa neefta ayaanu ka qaadanaa, sanbabkii ayaa neefta noo gashaa oksijiinta leh, kadibna oksijiintii ayaa jirka gudaha usii gasho. waxaana uu jirka ka soo aruuriyaan dhiigga naqaska loo yaqaano carbon dioxide-ka sanbabka ayaa la keenaa. sanbabka markii la keenana waa aan neefsanaa, kadibna habkeena neefsiga halkaas ayuu noogu shaqeeyaa oo jirka aad iyo aad muhiim ugu yahay. marka haddii sanbabkii sida ahaa ee neefta noo kala bedelayay, ee neefta oksijiinta ee aan qaadano ee aan neefsano jirka gudihiisa geynayay, ee markaa uu bukoodo, yaa noo shaqayn kara, yaa neeftii jirka noo gelinayo. marka qofkii wuxuu la ildarnaanaya, waxaad arkaysaa qof neeftii hiiq leh oo aan neefsan karin, oo naqaska ku dhagan yahay, oo walwarsan, oo xagga iyo xagga u cararayo. marka waxa weeyaan sanbabkii ayaan shaqaynaynin oo neeftii qaadaynin, carbon dioxide-kana ka soo saaraynin. carbon dioxide-ka waa wasaqda ka timaada amaba ka dhalata oksijiinta la isticmaalo. oksijiinta jirkeena markuu isticmaalo wasaq ayaa markaa halkaa ka dhalanayso. wasaqda ah
hawada ee jirkeenu ka soo baxaysa waxaa loo yaqaanaa carbon dioxide waa wax sun ah oo jirka loo baahan yahay in uu ka baxo haddii carbon dioxide-ka jirka uu iska saari waayo qofkii waa uu sumoobayaa maskaxdii ayaa sumoobaysa halkaas ayuu koomo ku geli karaa qofkiina uu ku dhiman karaa marka sanbabkeena waxa iyo habka neefsiga oo dhan habkaasi oo dhan ama dhuunta neef mareenka halka neeftu marto amaba xididada qaada oksijiinta carbon dioxide-kana jirka ka soo qaada ee sanbabka keena waxaasoo dhan waa habdhiska neefsiga waana habdhiska muhiim u ah jirkeena oo aan marnabana aanan ka maarmi karin haddii aan dib ugu noqdo cudurkan dadka magaalooyinka yaryar amaba dadka dhaqaalahooda hooseeyo amaba sida caadadeenuba tahay waxaa laga yaabaa in qof marti ah caawa reerku u soo martiyo qofkii waxaa laga yaabaa inuu cudur qabo waxaan samaynaa qofka sariirtii ayaan seexinaa marka caruurtii qolkaas ayay jiifaan marka caruurtii caawo halkaas ayay cudurkii ku qaadi karaan waxaa kaloo cudurka lagu qaadi karaa nafaqa darro qofka haysa qofka bini aadamka ah jirkiisa waxa uu ku shaqeeyaa amaba uu ku socdaa oo enerjiga amaba quwadda aan u baahannahay ay ka timaada cuntada iyo nafaqooyinka kala duwan ee aan cunno haddii nafaqooyinka jirkaagu u baahan yahay ee aanay isku dheelitirnayn ee aad u batato oo keliya hal nooc amaba aadanba cuninba cuntababa aadan cunin si kastaba ha ku timaada sida gabadhaha walaca ah cunto ma cuni karaan markaa daciif sidaas ayay ku yihiin oo jirkooda nafaqa darro ayaa qabanaysa oo haysa maxaa yeelay nafaqadii jirka u baahnaa ma gelayso haddii ay cunaan way ku lablaboonayaan wayna ma tagayaan wixii ay cuneen oo dhan marka waxaa dhacaysa gabadhii uurka lahayd in ay halkaasi walaca ahayd halkaasi nafaqa darro ka soo wajahdo iyadoo sidaa u nafaqa darna haddii ay la kulanto qof jadeecadi qabo amaba jeermi kala qabo waa si sahlan ayuu qofkaasi ugu gudbin karaa oo gabadhaasi cudurka ay ku qaadi kartaa waxaa kaloo jira sida jadeecada loo kala qaadayo haddii ay tahay dheefshiidka waa lagu kala qaadi karaa sida neefsiga hadda aan kasoo sheekaynay ayaa dheefshiidkana waxaa loogu kala qaadi karaa sida qofka cuntada kuu diyaariyey oo kale haddii gacmihiisii jeermiga uu saarnaa ee ansalaatadii uu kuu soo diyaariyey amaba sixnigii uu kuu soo guro qadada ahayd ee uu kuu keenay jeermigii ayaa saaran intaas u taabtay oo xiriirka la yeeshay marka adigii haddii aad cunto sida jeermigaasi sida toos ah si toos ah ayuu u galay calooshaada oo halka dheefshiidka uu galay marka jadeecada waxaan niri hababka ay asiibto waxaa ka mid ah habka dheefshiidka iyo habka neefsiga marka labadaasi habba waa systemyada jirkeennu aadka ugu baahan yahay dheefshiidka waa halka keliya ee raashinka markaan qaadano iyo nafaqooyinka kala duwan jirkeenu u baahan yahay aan qaadano shiila oo kala saara oo shaandheeya beerka u gudbiya beerkana isagana waa sii shiidaa markaasoo wuxuu u diraa nooc walba haddii vitamiino ay yihiin vitamiinaadka meesha looga baahnaa carbohydrate-ka oo ah cuntooyinka baastada bariiska burka iyo soorta galeyda qamadiga sarreenka intaasoo dhan carbohydrate jirka marka ay galaan waxay kaga dhigan yihiin in ay yihiin sonkor ayay kaga dhigan yihiin marka iyaga ayaanan quwadda aan ku hadlayno oo aan ku dhaqdhaqaaqayno oo aan ku fakarayno aan muxuu ahayd ka helnaa maskaxdeenna waxa ay u baahan tahay oxygen aad iyo aad u badan waxay kaloo u baahan tahay glucose amaba sonkor aad u badan sonkorta kama wado hadda sonkortan shaaha lagu darsado waxaan ka wadaa jirka marka uu cuntada shiido oo dheefshiidka iyo beerka cuntada ay shaandheeyaan sonkor ayaa laga dhigaa cuntadaas iyadoo oo sonkor maalaysa ayaa jirka la geliyaa dhagaysto waxaanaa is oran sokor badan waa inaan cunaa si jirkaygu quwad badan u helo sidaa ma ahan sonkorta iyo bariiska isku si ayay jirka uga shaqeeyaan gudihiisa marka waxaa dheefshiidka haddii cuntadii uu ku raaco jeermigii halkaas ayuu jeermigii ku asiibayaa oo aad jadeecadii ku qaadi kartaa calaamadaha cudurkan lagu arkaa
ayaa waxa ay yihiin كو waxaan ka bilaabaynaa muddada incubation period-ka la yiraahdo muddada incubation period-ka waxa macnaheedu yahay muddada jeermiga jirkaaga u galay iyo inta calaamadaha cudurka jirkaagu ay ka soo baxayaan calaamadahaasi marka ay soo baxaan cudurkii waa uu ku asiibay marka uu cudurka ku asiibo lama qaadan karo qallajiye oo lama oran karo viruskii jadeecada ii keena ayaan la dagaalamayaa jadeecada cudurka mar haddii uu ka soo baxo iyada cudurkaasi jadeec ahaan wax loogama qaban karo laakiin qallajiyaha amaba antibioticska qofka la siinaya waxa ay ka macno yihiin in lagaga hortago cudurro kale jeermiye kale oo qofkii markaa u nuglaaday ee cudurro kale ku keeni lahaa in lagaga hortago ayaa looga dan leeyahay ee ma aha in jadeecada lagu dilayo jeermigeeda maxaa yeelay mar haddii cudurku uu bilowdo waa uu ku asiibay ilaa uu ka guto wixii uu kaaga dan lahaa waxba cidna kaama saari karto marka waxaa kaliya ee qallajiyaha lagu siinayaa waxa weeyaan in lagaga hortago jeermiye kale oo cudurro kale ku keeni lahaa iyo fitamiinaadka la siinayo nafaqooyinka kala duwan la siinayo waxaa looga dan leeyahay in qofka tamartiisa lagu dhiso difaaciisa lagu dhiso oo markaa uu isaga celiyo aafooyinka jadeecada ay jirka ka sameynayso calaamadaha waxaa ugu horeeya xumad ayaa qofka lagu arkaa xumadda waxaad arkaysaa ilmihii yaraa oo xumadaysan ambaba qofkii waayeelka ahaa ma gabadhii uurka lahayd oo xumadi ay hayso xumad markay maalmo hayso ama 2 ama 3 maalmood ayaa waxaad arkaysaa afka gudihiisa iyo indhaha gudahooda ayaa casaada marka ay intaasi casaadaan qofkii neefta ayaa dhibaysa oo waxaa arkaysaa qofkii neefta raadinaya oo naqaska ku dhegan yahay markii intaasi qofka uu la ildarnaado oo waxba qabsan waayo oo neeftii baa dhibaysa xumad baa haysa xanuun gudaha ah ayaa haya marka amaba xabadka ha ahaado oo sanbabka marka xanuunka kaga aadanaado amaba dheefshiidka ha ahaado qofkii xanuun badan ayuu dareemayaa ilmihii ha ahaadaan qof waayeel ha ahaado markii xanuunkaas u bato waxaa maalinta 3aad iyo maalinta 4aad ama maalinta 7aad waxaa ka soo yaaca jadeecadii inta badan markaas ayaa la gartaa oo la yiraahdaa alla wixii jadeeco weeyaan oo ilmihii jadeeca ayaa hayso maalintaas ayaa la gartaa laakiin intii hore ilmaha ay la ildarnaayeen sanbabka bronkiita haysaa la dhihi karaa amaba hargab baa ku dhacay amaba waxyaabo noocaasaan u sheegnaa ilmihii waa uu shubmay aan dhihi karnaa ilmaha haddii caloosha uu ka galo jadeecada ay ka gasho waa uu shubmayaa shuban ayaa qofka ilmihii iyo matag ayaa u imanaya markaa waxay noqonaysaa ilmihii in uu sidaa u ildarnaado haddii sanbabka uu ka hayo waxaa laga yaabaa neefta xaggeeda in ay ilmihii dhigto oo uu neefsan waayo oo uu naqaska ku dhigo oo ilmihii habeen iyo maalinba seexan waayo marka jadeecadii waa ay ka soo yaacaysaa maalinta 7aad marka ay ka soo yaacdo xumadii waa ay degaysaa oo cudurkii dhaawici wuxuu geysan lahaa waa u geystay marka hadda dibadda ayuu u soo baxay markaasi oo kale maalinta 3aad ayaa waxaa la arkaa nabarada amaba 3 ilaa 7 maalmood ayaa jadeecada jirka ka soo yaacdaa oo waxaa lagu arkaa nabarada badan ee jadeecadu leedahay nabaradaasi waxa ay isku bedelayaan kuwa guduudan oo ku badan wajiga qoorta caloosha iyo dhabarka maalmo kadib ayaa xumadii waa yaraanaysaa marka nabaradaasi ay ka soo yaacaan marka waxaa mar haddii jadeecadii ay jirka ka soo baxdo waxay noqonaysaa in ay markaan cudurka aakhirkiisii ayaa lagu jiraa oo markaas laakiin cudurka mar haddii uu dhaawacyo kuu geystay daciif ayaad noqotay oo marka jadeecadu xitaa kaa baxdo qufaca kaama baxaya sida ugu dhaqsiyaha badan shubanka ilmihii kama joogsanayo sida ugu dhaqsiyaha badan
waxaa laga yaabaa in uu muddo 2 isbuuc iyo meelahaas ilmihii usii ildarnaado oo markaasi uu sii liito waqtiyadaasayto oo ilmaha sii liito jadeecadina ka soo yaraatay ayaa waxaa dhici karta markaas in jeermiyo kale ilmihii ay asiibaan oo cudurro kale markaa ku dhacaan ilmihiina haddana mar labaad uu afka dhulka la galo oo cudur kale ku yimaado marka waxaa loo baahan yahay intaa la ogaado oo marka ilmaha jadeecadaasi ay ku dhacdo in nafaqooyin iyo daawooyin fitamiinaad ah amaba raashimada amaba cuntooyinka qaar badan oo fitamiino leh ayaa ku jira sida fruutooyinka kasoo qaad muuska babayga cambaha qudaarta oo kale waxyaabahaas oo dhan fitamiinaad badan ayaa ku jira oo jirka u baahan yahay oo quwadiisa dhisayo qofka marka uu xanuunsado xanuun kastaba ku dhaco waxa uu u baahan yahay in quwadiisa la kor loo qaado oo la dhiso si uu isaga celiyo xanuunkaas jeermigaas jirkiisa ka shaqaysanaya ee cudurka ku haya haddii aan u gudubno dhibaatooyinka amaba diifaha uu ku reebto jadeecada ay ku reebto jirka bani aadamka ayaa waxa ay yihiin dheefshiidka oo qofkii uu la ildarnaado in badan uu la buko haddii qofka markaa quwadiisu ayna fiicnayn oo quwadiisa aan la dhisin oo qofka quwadiisa ay daciif tahay weli dheefshiidka in badan ayuu bukaankaasi qofkaasi la jiifi karaa amaba ilmahaasi la ildarnaan karaa sida dhinaca kalena haddaan ka eegno haddii uu qofka kaga dhacday neefsiga habka dhiska neefsiga waxa uu qofkaasi in badan la ildarnaanaya qufac oo muddo dheer uu qufacayo qofkaasi oo la ildaran yahay una ka shaqaysan karin una habeenkii ka hurdi karin marka qofka markii haddii una habeenkii seexanin maalintii waa tabcaan oo waa daciif oo waa daalan yahay habeenkii hurdada waa waxa kaliya uu jirka bani aadamka ah ku nasto oo isu soo kabo jirkiisa waa iskabaa jirka habeenkii marka uu qofku seexdo jirka kab ayuu samaynayaa oo wixii dhaawac ahaa ee maanta soo gaaray amaba ahaa unugyo dhinteen ayuu iska saarayaa unugyadii yaryaraa ee la abuuray ayuu haddana korinayaa marka hurdada habeenkii waa ay fiican tahay dadka waxaa ku waaninayaa in ay seexdaan waqti munaasib ah cishaha marka la tukado ee la casheeyo waxaa wanaagsan in la seexdo oo la hurdo maxaa yeelay jirkii ayaa iskabayo jirkii ayaa difaaciisii kor u sii kacayo oo dhismayo marka waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro in markaasi aan la qaadin complications kale waxaa loo baahan yahay haddaba haddii jadeecadu ay sidaa tahay oo sidaa dhibaatooyinkeedu u waaweyn yihiin maxaa nala habboon maxaa mujtamaca ku waajib ah maxaa mujtamacu ay samayn karaan oo lagaga hortegi karaa dhibaatada noocan ah dhibaatooyinka sidan oo kale ah waxaa lagaga hortegi karaa horta in warbaahin ballaaran la sameeyo oo ummadda oo dhan la gaarsiiyo sida cudurka loo kala qaado cudurka dhibaatooyinka uu leeyahay sida haddaba aan darsigan aan ku jirno kale waxaa laga yaabaa in badan oo i dhagaysanayso in ay fahmaan sida cudurka la isaga qaado oo markaasi ay iska ilaaliyaan waxaa kaloo loo baahan yahay sida cudurka la isaga qaado in ummadda la fahamsiiyo oo loo sheego oo lagaga sheego culimmada ay sheegto macallimiintu sheegaan jiiraanka hooyooyinka isu sheegaan inta saaxiibada isu sheegaan dhalinyaradu isu sheegaan ayaa loo baahan yahay oo cudurka sida lagu kala qaado ummadda oo dhan ay fahamto markaasi mar haddii la fahmo cudurka sida loo kala qaado waxaa suurtoobaysa amaba hirgelaysa in cudurkii sida loo kala qaadi lahaa laga foojignaado oo markaasi cudurkaasi halkaasi uu ku dhinto oo dadkii ay ka badbaadaan waxaa kaloo lagaga hortegi karaa tallaabooyinkan waxaa waaye tallaabooyinka ka hortagga cudurka ayaa muxuu ahayd aan ka hadlaynay in wacyigelin ballaaran oo ilaa iyo ummadda dadka caadiga ah ay ka wada dareemaan oo xoogga la saaro oo wasaaradda caafimaadka wasaaradda qorsheynta
wasaaradda arrimaha gudaha ciidamada kulli loo wada guntado in la fahmo cudurka in uu magaalo haddii uu soo galo uu magaaladaasi dadka joogo oo dhan uu wada baabi'in karo marka maadaama uu wada baabi'in karo ka hortagiisana ay sahlan tahay in la fahmo ay tahay waxaa muxuu ahaayta meesha ku jira oo muhiim ah in saa loo fahmo oo cudurkii ka hortagiisii la xoojiyo oo si aad looga taxadaro waxaa kaloo lagaga hortagi karaa tallaabada ah in caruurta amaba dadka ducafada ah laga dhiso xagga nafaqada in laga dhiso oo dadka ay fahmaan amaba qaataan isticmaalaan cunaan cuntooyinka nafaqada leh ee isku dheelitiran ee jirku u baahan yahay haddii uu ka dhigan lahaa kaalmo xagga nafaqada leh amaba uu ka dhigan lahaa in uu ka dhigan lahaa uu ku quwad ka dhigan lahaa amaba difaac ka dhigan lahaa marka waxaa loo baahan yahay cuntooyinka magaalada yaalla amaba dalkeena laga helo in la fahmo oo markaasi loo cuno sida ay tahay qudaarta oo kale marka aan joogno Soomaaliya gobolada qudaarta beeralayda ah gobolada beeralayda iyo gobolada u dhow qudaarta waa la helaa qudaarta waxaa loo baahan yahay in la cuno dadka Soomaalida waxaa u badan dad badan oo leh qudaarta iskuma fiicnin caanaha ukunta digaagada shimbiraha oo dhan ma aha sida qooleyda waa la cunaa haddaad dalka Masar tagto oo cid ay aad ku ixtiraamayaan oo ku martiqaadayaan qooley lagu martiqaadaa oo dhan oo la kariyay marka qooleyda waa ay fiican tahay waa la cunaa waxaa kaloo la cunaa digaagadaha oo dhan waxaa jirto digaagado duurka ku jiro oo loo yaqaano digaaga duur amaba dooro duur loo yaqaano ayagana waa la soo qabsan karaa sida ugaarta oo kale hilib ahaan taasaa la cuni karaa ukuntaa la cuni karaa waxaa kaloo la cuni karaa waxyaabaha badda ku jiro oo dhan waa noo wada xalaal ilaahay alxamdulilah xalaal buu nooga dhigay marka intaasoo dhan ayaa la cuni karaa oo ma aragtay nafaqada oo jirka wax gelinayo waxaa kaloo loo baahan yahay in biyo badan la cabo maxaa yeelay jirka haddii uu soo asiibo jeermiskaasina uu halis ku yahay oo cudur u keenayo haddii biyo badan qofku cabayo jirkeena waxa uu ka samaysan yahay 70% ilaa 75 biyo unugyadeena banaankoodana biyaa yaala gudahana biyaa ku jiro biyahaasi waxa ay u baahan yihiin si joogto ah in ay isu bedelayaan oo kaadi ahaan u baxayaan jirka dhaqayaan wixii infection ah oo dhan kaadida ha raacaan dhididka ha raacaan marka in aad biyo badan cabto ayaa loo baahan yahay sistemyada oo dhan waa ay kala soconayaan marka biyaha badan uu qofku cabo waxaa loo baahan yahay oo saddexaad nadaafadda waa shay aad iyo aad muhiim u ah nadaafadda waxay ka bilaabanaysaa shaqsiga nadaafadda shaqsiga ayay ka bilaabanaysaa waxaa ku xiga caruurteeda gabadha hooyada ah caruurteeda nadaafadooda aqalka ay ku nool yihiin nadaafadooda banaanka aqalka banaankiisa nadaafadda oo in la wadada hortaada ah in ay nadiif tahay haddaanay nadiif ahayn in aad nadiifiso adiga dantaada ayaa ku jirta haddii dhowr qoys jiiraan ah ama daris ah isu yimaadaan oo yiraahdaan aagageena aan maanta nadiifsan waxa ay sameeyeen wax weyn waxaana ay u sameeyeen qurux waxa ay u sameeyeen caafimaadkooda daryeeleen marka intaasuba waxa loo baahan yahay nadaafadda waxa ka bilaabanaysa shaqsiga waxaana ku dhamaanaysa ilaa dalka oo dhan ummadda meeshaas wada degan oo dhan ayay ku dhamaanaysa waana dan waxa qof walba ayay dantiisu tahay in aagaasi oo dhan u nadaafadiisu wacan tahay marka magaalada marmarba waxaad arkaysaa hooyooyin isu tagay ayaa waxay leeyihiin waxaan maanta nadiifinaynaa suuqa xaafadeena ma sha Allah waa arin aad u wanaagsan nadaafadda diinteena ayaa qabto nadaafadda waa iimaanka jirka waa iimaanka
nafsiga nafteena marka iimaanka waxa uu kugu xasili karaa haddii aad nadiif tahay meesha aad fadhiisanayso meesha aad ku nooshahay meesha aad marayso meesha aad seexanayso waxa aad cunayso shayga cuntada aad ku cunayso haddii ay nadiif yihiin iimaanka ayaa kuu degayo jawiga ayaa kuu degayo caafimaadkaaga ayaad hubtaa oo aad ma aragtay wixii yar ilaahay ku siiyay hadaad ku cunto si nadiif ah aad u cunto waxay noqonaysaa jirkaaga in aad u dadaashay oo nadaafadaasi aad iyo aad ugu dadaashay waxaa kaloo jiro wacyigelinta oo waxaa loo baahan yahay in la wacyigeliyo ummadda ummadda wacyigelinteeda culamaa diinka ayaa ka mid ah ardayda macallimiinta iskuullada ayaa ka mid ah hooyooyinka ayaa ka mid ah warbaahinta ayaa ka mid ah intaasoo dhan wacyigelinta cudurrada sida la isaga ilaaliyo aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay daawadayaal dhagaystayaal darsigeena ku saabsanaa jadeecada caawa intaas ayuu ku dhan yahay waxaan filayaa fariinta ah in nadaafadda la dhowro quwadda jeermiga la isaga ilaalinayo ee difaaca jirka oo la dhiso oo nafaqooyin wanaagsan la cuno nadaafadda aaga iyo shaqsiga la ilaaliyo intaasoo dhan waxa waaye fariimaha darsigeena caawa aan halka ka sii jeedinayno daawadayaal dhagaystayaal darsiga caawa intaas ayuu ku dhan yahay inta aan dib hawada ugu kulmayno waxaan mahad u celinayaa ilaahayga subxaana qaadirka ahay waxaan kaloo mahad u celinayaa dhagaystayaasha barnaamijka ku xiran ee aan aadka u jeclahay waxaan kaloo mahad u celinayaa wiilasha dhalinyarada ah ee barnaamijka ila daadahaynayay ilaahay iyagana khayr ha ka siiyaan leeyahay waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan daawadayaasha aan jeclahay waxaana idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo nuuli kulanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu